Bismillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Welcome to all my own students. Welcome to Aqoon Bila Private School and Computer Training Center. Today we're gonna explain 12 tense. So noqod wanaagsan maanta waxaan ku jirnaa casharadeenii waxaan sharaxan doonaa haddii ay baweyne nafta inoo daayo 12 tense 12 tense baan sharaxan doonaa oo afkeenu hooyo ku noqon doontaa 12 tennis inta aynan u gudagelin casharada 12 tense-ka dhowr su'aalood ayaa jira oo loo baahan yahay in laga jawaabo. Su'aasha koowaad, what does mean tense? Waa maxay micnaha tense? Ereyga tense micnihiisa iyo asalkiisa halkuu ka yimid. Tense comes from tense wuxuu ka yimid Latin word. Ereyga tense asalkiisu waa Latin word. Muxuu markuu Latinka ahaa tempus means time taasoo loola jeedo waqti. Ardayow ereyga tense haddii aad rabtid macnihiisa inaad ogaatid waa time oo waa waqti. Ereyga tense asalkiisu waa Latin word wuxuu ahaa markii hore tempus waxaa loola jeedaa time oo waqti ah. Su'aasha markaynu ka jawaabnay kadib haddana tu kale inoo taala. What is tense? Waa maxay tennisku? Tennisku muxuu yahay? Tense is action. Tennisku waa ficil. Tell us kaasoo inoo sheega the time of the action. Xilliga uu falku dhacayo ayuu inoo sheegaa. Or ama state waa xaalad expressed lagu qeexo by the verb in a sentences. Verb-yada jumladu ay leedahay waa state amba xaalad lagu qeexo. Tense waa maxay? Is action waa ficil. Tell us kaasoo inaga inoo sheega the time of the action xilliga falku uu dhacayo. Or ama state waa xaalad expressed qeexda lagu qeexo by the verb in a sentence. Jumladii verbka ay leedahay baa lagu qeexaa. Halkaa hore waxaanu ku soo sheegnay what does mean tense baynu kaga soo jawaabnay. Halkanna waxaynu kaga jawaabnay what is tense? Waa maxay tennisku? Okay, casharkeena waan kusii wada soconanaa. In Englishka marka la joogo there are waxaa jira 3 main types 3 qaybood baa jira of tense oo tennisya ah. Divided waxay u qaybsamaan of other branches. 3daa qayboodna waxay u qaybsamayaan qaybooyin kale and they are waxayna kala yihiin 3da qaybood ee waaweyn ee tenniska lagu qeexaa waa 3dan. Koowaad waa the present tense. The present tense waxay ka hadlaan waxyaabaha jooga ee presentiga ah. Number 2 the past tense waxay ka hadlaan waxyaabaha lasoo dhaafay ee pastiga ah. Saddexaad waa the future tense iyagana waxay ka hadlaan future-ka amba waxyaabaha mustaqbalka iman doona. Okay, waxaynu hore usoo sheegnay inuu tennisku leeyahay 3 qaybood oo waaweyn. 3dii qayboodna ay qaybo kale other branches ay sii yeelan doonaan. Si guud tennisyadu waxay ka kooban yihiin 12 tennis oo waa kuwa halkan inoogu qoran. Ka koowaad waxaa la yidhaahdaa simple present tense. 2 present continuous tense. 3 present perfect tense. 4 present perfect continuous tense. 5 simple past tense. 6 past continuous tense. 7 past perfect tense. 8 past perfect continuous tense. Future simple future tense. Future continuous tense. Future perfect tense. Future perfect continuous tense. oo ardayo marka la leeyahay 12 tense 12 waqti waxaa loola jeedaa 12 qaybood ee uu tennisku ka kooban yahay. Tennisyada sida ay iskugu xigaan badi macad walba sibuu u dhigaa. Laakiin the easiest way that you can gonna learn 12 tense is here. Sida ugu fudud ee luqadda Englishka aad ku baran kartid waa kuwan oo brancheska iyo qaybaha iyo sida loo kala horeysiiyay haddaad u fiirsatid 1 ilaa 4 waa present. 5 ilaa 8 waa past.
9 ilaa 12 iyagana waa future oo dhammaantood marka koowaad presentigaad qaadani kadib pastigaad qaadani dan futurekaad ayaad u tegi. Wassalaamu calaykum iyo casharkeena xiga.